السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل توعنا ونكسن أخيارتها ودينا قد داوري ساي كسر هذا بيج كنا يوتيوب كنا VOS 24 TV برنامج كأمانة واحد لنا وحالة كسر إسبوراتي وتكاسي إيران عاصمة طهران. فضلا وحنا ذيك عصينا قف كان سبسكرايب وصارنا سبسكرايب صاروا يوتيوب كنا بيج كنا فلو جريسو سيو مرة كستكوسو جارة برنامجنا أوكي. haddaba aan guda galno barnaamijkeena maanta aan idin hayo waddankaasi Iran ee magaalada caasimada u ah ee Tehran ayaa waxa lagu toogtay nin lagu magacaabo Ali Rida Akbari. ninkaasi oo u dhashay waddankaasi Iran xilal fara badan ka soo qabtay waddankaasi ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga taliyaha guud ee ciidamada badda wuxuu kaloo soo qabtay wada hadallada Mareykanka iyo Iran ay isku afgaranayaan arrimaha nuclearka iyo xilal kale. haddaba aan guda galo tooshiisa waxa keenay Ali Rida Akbari waxa la toogtay maalinimadii Sabtida ee na soo dhaaftay waxaana lagu soo eedeeyay in uu muddo u jaajusayay waddankaasi Britain ama Ingiriiska. Ali Rida Akbari wuxuu ku wax ku soo bartay waddanka Ingiriiska ka hor intuusan waxbarasho u aadinna waxa uu doontay safaaradda Ingiriiska ee ku taalo magaalada Tehran visa dalku gal ah oo waxbarasho kaga doonayo waddankaasi Ingiriiska. Ali Rida Akbari waxa loo fududeeyay safaaradda Ingiriiska u fududeeyeen fiisihii waxbarashadii isagoo Britain looga gaday guri iyo nolol wanaagsan looguna balaqaaday. Ali Rida Akbari intuusan xeelalka dawladda ka qabanin waxay wada hadal ku soo galeen waddankaasi Austria isaga iyo niman sirdoon oo ka socda waddankaasi Ingiriiska. 2013 ilaa 2008 wuxuu u basaasi jiray arrimaha nuclearka iyo arrimaha kale xasaasiga ah waddankaasi Ingiriiska. haddaba 3 sano ka hor sidee lagu soo qabtay Ali Rida Akbari? Ali Rida Akbari waxa xabsiga la geliyay 3 sano ka hor isagoo ku dhumaaleysanaya ama jooga waddankaasi Austria. dabagal badan ay sameeyeen ciidamada sirdoonka ee Iiraaniyiinta. Ali Rida Akbari waxay soo bandhigeen macluumaad ku saleysan inuu u basaasi jiray waddankaasi Ingiriiska ee uu dhalasho iyo degenaansho uu ka helay. Ali Rida Akbari wuxuu noqday wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. wuxuu la taliye u noqday jarnaalka ugu sareeya ciidamada badda. wuxuu ku jiray wada hadallada nuclearka. Ali Rida Akbari wuxuu kaloo ku jiray wada hadal walba oo ay Iran la galayso reer galbeedka ama qolyaha kale ee ka soo horjeedo. aan sii guda galna marka Ali Rida Akbari maalinimadii Sabtida ee soo dhaafnay waxay ciidamada sirdoonka ee Iran ku toogteen halka lagu toogto dadka ee magaalada caasimada u ah Tehran. sawirada halkaan idinkaga muuqdo waa isaga oo wax ka saxiixaya arrimaha nuclearka. Ali Rida Akbari waxa kale oo sawiradiisu ku jiro way wada arki doontaan. halkaan ayaan ku soo bandhigayaa isagoo la fadhiya waxa la dhahay nimankan mucaamaraadka Ingiriiska ee sirdoonka Ingiriiska. sawirkan kale oo idin muuqdo ninkaasi jaakada madow wato waa isaga Ali waaye. ninka dareeska ciidanka watana waa la taliyaha waa taliyaha ciidamada badda ee uu ahaan jiray la taliye. ninka saddexaad ee wata khamiiska
lagu yaqaano imaaraadka iyo waxyaabo noocaas lagu yaqaano ma naqaan laakiinse waa kolley qolooyinkan imaaraadka waaye sawirada iyo sirdoonka ay soo bandhigeen oo xasaasiga ah inta aanan la qabanin cali rida akbari wuxuu ku dhacay ama hoteelka uu ka degan yahay Australia oo kula macaamiloonayo ama kula wada hadal oo la yeelanayay nimankaas sirdoonka u ah Ingiriiska markay ka tageen wuxuu shock macnaha maskaxiin macnaha biqudratillaahi ku dhacay isaga sibuu u shoogay tabardare umad baa kusoo booday isagoo weliba suuliyo ku jiro sawirada ay ka qaadeen ciidamada sirdoonka ee Iiraan waa kan halkaan ka muuqdo korkeega dhankaan isagoo dhacay oo yaala nimankaan ay uskooda ma sahlan sirdoonka Iiraan naftirkooda ma sahlan waa wax kale isla markii waxaa meesha ka qaaday sirdoonka Ingiriiska isbitaal ay geeyeen xaaladiisa markuu intaa kasoo wanaagsanaaday waxay u sheegeen in uu waqtigan ay tahay waqtigii uu ku laaban lahaa waddankiisa sifo uu soo gudbiyey macluumaad markii uu soo gaaray waddankiisa kusoo laabtayna waxa uu la kulmay ciidamada sirdoonka ee waddankan isla markiiba waxay gacanta ku dhigeen marxaladan isagii uu airport ka soo degay gacanta ay ku dhigeen waxaa kaloo tasawirada ku jiro oo halkaan idinkaga muuqan doono isaga oo la wareystay misana qirtay hadalkiisa uuna sheegay inuu la macaamilo jiray ama la shaqay jiray nimankaas sirdoonka ah ee Ingiriiska macluumaad badan lagu gudbi jiray isku soo wada duub barnaamijkan aan haddeertaan uga hadlayno cali rida akbari wuxuu ku xukuntay maxkamadda ciidanka ee waddankaasi Iiraan dil toogasho daraan oo sabti ahaydna xukunkii ayaa ku dhacay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanaynaa in aad fikirkiina kumatiga kasoo dhiibataan link iyo shartan aad noogu dadaashaan dhanka Facebook pagekeena VOS24 TV aad noo saartaan follow YouTube-keenana aad noo saartaan subscribe cidda aan u saareen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.